السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتها وذا نقد ونيساي كسر دواذا برنامج جارا وإن كجا إيمانيا تلفزيون كعالمي جاي سومالي جنرال حرون تيجي مقالة نيروبي. برنامج كمان توحى مرتي إنه جو سفير كي هراء سوماليا مدن محمد علي نور أمريكا وفدي سفارة داني دالكي كينيا مدن كسر دواو. عبد الرحمن أدى وما سنتها وكترامية رمضان كريم. mudane waxaan jeclaan lahaa intaanan gudagelin waraysigeena inaad marka hore faahfaahin iga siiso safarka aad u bixisay magaciisa uu yahay socdaalkii nabadda ulajeedadiisa iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa aad ma santa Cabdi Raxmaan socdaalkii nabadda wuxuu ahaa socdaal aan ku soo maray wadanka gudihiisa oo aan ku tagay magaalooyin iyo gobolo badan oo aan ka bilaabay Muqdisho waxaan tagay Kismaayo Baydhabo Garowe Qardho Boosaaso gaalkacyo cadaado dhuusamareeb gurceel matabaan kadib waxaan ku soo laabtay Muqdisho waxaan tagay Balcad Jowhar iyo waxaan tagay Warshiq kadibna waxaan عزومين جالسة الصومالية دبل دقن قربها كنا دياسبرا وأن تجي يوروب يو كندا يو أمريكا حتى أن كيمد سلاك مهمة واحد هيد إن الصومالية أما مدينة الصومالية عن واحد لو نبض واحد هاي يو دبشين لو باي هاي يو ودك إن صوبرتو دس كان سؤال كنا ويسود وينو أو متقنا دت وحنا سؤال كي دولة ربا دت ربا نبضة iyo raba in lees cafiskana aad baan u hadlo oo lees cafiyana meenta in mudane aan ku soo laabto oo aan wax ka weydiiyo safarkii socdaalka nabadda ee aad ku bixisay Soomaaliya markaad ku guda jirtay socdaalkii safarkaasi markaad galeysay magaalada tan beledweyne ee gobolka Hiiraan in lagu diiday oo aad hore u gali weysay ama socdaalkaaga meesha aad ka sii wadan weysay waxaad inoo faahfaahisaa caqabadihii meesha kaaga yimid ma wuxuu ahaa mid xagga amniga ku saabsan ah mase wuxuu ahaa mid idinka dhaxeeya maamul ahaan gobolka aan dhahay gobolka Hiiraan iyo adiga wax idinka dhaxeeya xag siyaasad ah bal no iftiimi bal dadka ku daawanaya oo iftiimi socdaalkaasi siyaabaha lagu diiday وما استع عبد الرحمن السعودال كي هو سانكو شيء مكان تيجي كسمايو وحسمع يوسودويه معمول جبل محل جبلان بلدوين ها مركا وحن كاي ودا ميلها أنت كل وقت سيف عم بالي يوسودويه معمول قبلية iyo dadweynaha كل يوسودويين arinta بلدوين هيد waxa ka dambeeyay hal nin baa ka dambeeyay saharu sheegay oo ah gudoomiye hore mataqaana gobolka Hiiraan Al-Fataax laakiin dadweynaha reer Hiiraan reer beledweyne xildhibaanadooda odayaashooda haweenkooda dhalinyarada kulli aad bay arrinta ugu xumaadeen ilaa maanta way ka raalgeliyaan marka anna waa ka aqbalay insha Allah tacaala nasaan sheegana duulaan waan tagi doonaa beledweyne waa magaalo Soomaaliyeed aniga qof Soomaali baan ahay shaqo Soomaaliyeed baan ahay qof wax ka helay ma jirto magaalooyinka kale lagu soo dhaweeyay ayaan filayay in la soo dhaweeyo laakiin hadeertan waa insha Allah tacaala waa tagi doonaa mudane socdaalkaagii aad ku bixinaysay tan iyo Yurub iyo dalkii hooyo waxaan dareemaynaa markii xilka laga qaaday kadib aad safaaradda xilkeedii wareejisay ee dalkani Kenya aad kaga ahayd safaaradda safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya socdaalkaasi aad ku bixinaysay ma isleedahay dadku waxay u fahmayaan in socdaalkaagu uu qayb ka yahay socdaal aad isku soo sharaxayso uu qayb ka yahay ama maadaama dalka hadda uu u dhow yahay in ay election galaan ama musharaxiintu Soomaaliya muwaadiniintoodu ay madaxtinimo isku soo sharaxaan ma la isdhihi karaa socdaalkaagu wuxuu hordhac u yahay inaad isu soo sharaxi doonto ama musharax madaxweyne aad tahay bal socdaalkaasi muxuu ku saabsan yahay horta su'aalka marka aniga aan bilaabayay waxay ahayd maadaama aan muddo 8 sano iyo ka badan aan safiir dowladda Soomaaliyeed wakiil uga ahaa wadanka Kenya halkaasna oo aan mataqaana shaqo badan ka hayay oo waqti aan u waayay inaan safro hadda maadaama aan waqti helay inaan safarkaas galo ayadoo ay ahayd barasho wadanka soo barto iyo casuumad aan ka helay maamul goboleeda mataqaana ka dhashay wadanka ayay ahayd arinta oo sharxida ama inaan soo sharxay in kale aniga maanta Soomaaliyeed baan ahay xaq baan u leeyahay inaan isku sharxo aan u ordo madaxweyne ama xil kale xilal kale ee Soomaaliya ka soo bixi doona laakiin insha Allah tacaala hada safarkii taasna kuma xirneen haddaan sharaxay hadii kale insha Allah tacaala waqtiga ay sheegi doona waxaan ku sheegi doonaa magaalada Soomaaliya ee Muqdisho haduu leeyahay inta la gaarin doorashada
mudane waxaad safiir tahay muddo ku dhawaad 8 sano ah waxaad tahay nin muwaadin Soomaaliyeed siyaasi ah ka warqaba arrimaha Soomaaliya iyo siyaasadeeda waxaad haatan arkaysaa dalkii Soomaaliya in faragelin shisheeye aad u xoog badan inay gacanta u galeyso ma waxaad ilis leedahay siyaasaddaasi Soomaaliya faraha ka baxayso waxay ku timid qaab daciifnimo ah oo xagga siyaasiyiinta Soomaaliyeed daciifnimo xaggooda ka socota ah mase waxaa jirta is leedahay in ay jirto caqabado ka weyn siyaasiyiinta ama awood maqoonis ah oo beesha caalamka xaggeeda ka taagan maxaad ku saleyn kartaa siyaabahaasi ku daawanayana u iftiimin kartaa anigu waxaan aaminsanahay markii shirkii Garowe 2 ama Garowe 2 lagu soo heshiiyay magaalada Garowe ee Puntland 2012 kadibna doorashada dhacday oo la doortay dawladda cusub iyo madaxweynaha cusub waan ka baxnay xilligii ama dawladdii ku meel gaarka ahayd aniga iyo Soomaali fara badan waxaan filaynay in 4 sano ay dawladdan cusub ay u hogaamin doonto Soomaaliya xilli markii la gaaro doorashada 2016 September in la gaari doono doorasho hal qof hal cod ah ma dhicin waxyaabo badan oo loo baahnaa in la sameeyo ayaan dawladdan hadda aan sameynin waxyaabo badan way sameysay oo fiican laakiin waxaan dhihi karaa wixii laga filayay kama soo bixin waxaan rajeynayaa dawladdan cusub hadda la doonto September sanadkan inay mataqaanaa ay sameyn doonto ayna noo hogaamin doonto in 2020 la gaaro hal qof iyo hal cod wadanka dhibaato ka jirto aniga waa soo maray gees baan soo maray dadkii waa soo arkay waxyaabaha aan dadka aan ku soo arkay ay sheegeen waxa kamid ah anoo maraya meel u dhaxaysa tuulo u dhaxaysa waxaan filayaa inay ahayd Cadaado iyo Dhuusamareeb meel tuulo yar ayaan shaah ka cabayay oday baa noo yimid oo soo fadhiistay markaas la yiri adeer ninka waxa la yiraahdaa ambassador Maxamed Cali Ameerko markaas uu yiri TV ka maqlay yiri raadaan ka maqlay laakiin wuxuu yiri qof ka socda dawladda oo noo yimaada ama tuulooyinka yimaada waxaan u dambeysay yiri waagii tooradii ayaan ugu dambeysay yiri oo waagii dawladda hore ee Ilaahay Xasan Maxamed Saad Barre dawladdii kacanka ahayd ayaan ugu dambeysay yiri marka waxay ku tusaysaa in hadda madaxda joogta laga rabay inay tagaan soo booqdaan dadka ay soo wareystaan waxay u baahan u qabtaan waxyaabaha hadda dadka ay ka cabanayeen aan soo arkay waxa kamid ahayd iskuulaad ma laha meelaha qaarkood isbitaallo ma laha xagga ceelal ma laha waxay leeyihiin maalmo 2 maalmood ayaa dadka qaarkood ay u soo aroor tagaan haweenka markay dhalayaan saas kale dhibaatooyin ka qabaan waxay ahayd in loo miciin bido in la ogaado dawladda Soomaaliya Muqdisho kaliya ma dawladda Soomaaliya waxay wakiil ka tahay ama ay maamulaysaa Soomaaliya dhawaay gees way inay ka warqabta ahayd marka dhibaatooyinkaas jira dadkana waxaan filayaa insha Allah taala dawladda cusub inay wax ka bedeli doonto socdaalka dalka hooyo aad ku sameysay waxa ku jiray inaad socdaal ku bixisay waqooyi galbeed ee Hargeysa ama maamulka hadda la magac baxay Somaliland markaad la mareysay ama aad shacabka ku dhex socotay ee Somaliland ama Hargeysa waqooyi galbeed ma jirtay siyaabo ay shacabku muujinayeen kala sooc xagga Soomaali iyo Somaliland shacabkuse maxay ayagu shakhsi ahaan ku arkayeen ayagana siyaasad ahaan markii la eego ma la isdhihi karaa way ku kala dugan yihiin labada shacab Soomaaliya iyo Soomaali waqooyi galbeed mase siyaasiyiinta baa wax noo kala soocaya shacabku waa isla shacab Soomaali ah walaal markaan tagay Hargeysa tagay Somaliland waxaan la kulmay ama soo arkay meel nabad ah oo aad u nabdoon dadkana ay mataqaanaa ay isku tashadeen ay shaqaysteen ay ka shaqeeyeen wadankooda aan dhahay dhulkooda ka shaqeeyeen oo ay mataqaanaa si fiican gobolka ugu shaqeeyeen waana ugu mahadcelinaya oo mataqaanaa in lagu abaal mariyo ay mudan yihiin lagu amaano ay mudan yihiin nabaday keeneen anigana waxaan rajeynayaa insha Allah taala nabadooda Ilaahay inuu soo kordhiyo siyaasiyiinta iyo shacabku maxay ku kala dugan yihiin markii la eego kala go'itaanka Soomaali waqooyi iyo Soomaali koonfur markaan tagay Hargeysa hadda aniga uma tagin siyaasad uma tagin waxa uu tagay kaliya shakhsi ahaan u tagay oo mataqaanaa arrimaha siyaasadda kala ma hadlin maalmahan joogay wax siyaasadna ma galin laakiin saan ku sheegay dad waxay ahaayeen oo nabadda jecel anigana ka shakhsi ahaan Maxamed Cali Ameerka ahaan si fiican baa la soo dhaweeyay waana ugu mahadcelinayaa soo dhaweynta wanaagsan la soo dhaweeyay markii aad dhex mareysay adigoo Maxamed Cali Nuur Ameerika safiirka safaaradda Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya markaad dhex mareysay Hargeysa dhexdeeda
dadku maxaad ka dhadhaminaysay masaasaanye waxaad ka dhadhaminaysay Soomaali jacayl ah mase waxaa ka dhadhaminaysay inaysan Soomaali jacayl ku jirin ee haatan u go'een Somaliland runta waxa aniga waa ognahay kulligeen dadka reer Somaliland waxay aaminsan yihiin inay yihiin wadan ka go'ay Soomaaliya inteeda kale waxay aaminsan yihiin inay ma taqaanaa calan gooni leeyihiin waxay aaminsan yihiin inay dawlad gaar ah yihiin inta arkay dadka kulligoodna way taas ay waxaa jirta socdaalka bariga Yurub ama qaaradda Yurub ee aad ku bixinaysay erey halbeeg ku ahaa ee aad qabsatay ereygaas oo ahaa markii lagu sheego afka qalaad I believe Soomaalinimo ama waxaan rumaysanahay Soomaalinimo ereygaasi ma erey dad kale ay ku keeneen oo aad xayeysiin ku sameynaysay ba mise erey maskaxdaadu ka soo maxatay waay ereygaasi yoolka aad ka leedahay waxaan rumaysanahay Soomaalinimo ma noo qeexi kartaa warunta waaye arintaas oo inaan aaminsanahay Soomaalinimo waa wax aniga ugu jirtay mar hore hadirtaana aan aad uga hadlayay marka wadan gudihiisa maray xataa waan la kulmayay madaxda maamulgoboleedyada waan la hadlayay waxyaabaha kala hadlay waxa kamid ahayd in marka qaarkood markii la qabsado oo laba maamul qabsadaan ama siyaasiyiin ka tirsan maamul gudihiisa ka tirsan isqabsadaan waxaa laga yaabaa in heshiin waayaan waxaa la leeyahay hala aado Nairobi hala aado Addis Ababa dibadda hala aado haloo yeero wadamada deeqaha bixiyaan wadamada gacanta siiya ana heshiisiyaan waxaan ku dhahay Soomaali baan nahay waxa fiican in anaga waxayna ahalisan in anaga aan heshiino anaga waxayna aan dhameysano waxa uu jiraa 2016 markasto in aan dhahno haloo yeero wadan kale ama aadna wadan kale saa u heshiino in laga baxo taas ayaa igu dhalisay inaan markasto dhaho waxaan fiican oo aniga aan aaminsanahay in dadka ay aaminaan Soomaalinimada Soomaali baan nahay walaalana nahay isku afaan nahay isku diin baan nahay ma anaga heshiino waa inuu dhaxgalaya marka taas ay ahayd dibadda markaa tagay dadka Soomaaliya qurba joog ah aad bay u soo dhaweeyeen oo aan kala hadlay ayagana inaan u sheegay in wadankooda ay qayb ka qaataan dhisaan wadankooda mudan markaan su'aal ka dhex baxsada hadalkaaga xagga dhisitaanka maamulada federalism-ka ah ee 2002 alifkii looga baxay kumeel gaarkii Soomaaliya dawladeedu ahayd adiga sideed u aragtaa federalism-kuse ma waxaatan la taagan yahay oo dalka iyo dadkaba anfac u ah mas waxaad is leedahay waanan arrin aan la gaarin ee lagu degdegay maxaad si shakhsi ahaan Maxamed Cali America ahaan aad ka aaminsantahay federalism-ka aniga ka shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay federalism-ka aniga waxaan ku noolahay waan ka imid Canada wadan Canada oo ayadana qabto federalism qabto laakiin waxaan aaminsanahay Soomaaliya federalism-ka waxaa loo baahnaa dadka in la baro dadka badankooda marka wareysto federalism-ka waxay tahay faa'iidadeeda sharciyeeda ma garanayaan marka aniga waxaan aaminsanahay inay naga maqan tahay orientation ama dadka in loo shaxo TV-da laga hadlo raadiyaasha laga hadlo dadka ay su'aalo weydiiyaan meelaha hadda markaan soo maray gobolada soo maray dadka waxaan arkayay badankooda inaan garanayba aan ogeyn waxay tahay federalism iyo macnaheeda marka federalism inay xuntaa macnaheeda ma aha laakiin waxa ka maqan kaliya dawladda laga doonaya inay dadka baraan u sharxaan ay mataqaanaa si oo saraxad leh ugu sheegaan faa'iidada federalism mudane waxaa jirta caqabad xagga dhanka siyaasigu markuu ku jiro hawsha loo igmaday ama loo magacaabay tusaale markaan ka soo qaato markaad ahayd hadda safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalkan Kenya waxaa jira waxyaabo badan ee markaasi aadan dareemeynin qabashadooda laakiin markii siyaasadda aad ka soo baxdid aad is leedahay waxyaabahaasi buuxis bay u baahnayeen ama ha noqoto markaasi inaad uga aamustay dhan caburis ama kaga timaado xagga faragelin siyaasadeed ee dhanka dibadaha kaaga imaada ama beesha caalamka kaaga timaada markaad banaanka ka taagan tahay booskii banaana ama gaabkii banaana sidee baa is leedahay siyaasiyiintu way u buuxin karaan ama fursad markay u helaan inay media imaadaan sida hadoo kale Somali Journal fursaday ku siiso kale sidee baa dadku ugu baraarujin kartaa gaabka dhiman in loo buuxiyo su'aasha kalena waxay tahay federalism-ka sidee dadka loo ogeysiin karaa waxaan la sameyn karaa waan aaminsanahay in la keeno dad khubara Soomaaliyeed baa jira oo wax soo bartay federalism-ka iyaga in la keeno aniga ma qabi in markasta markii Soomaalida wax loo sheegayo in dad ajnabi la keeno Soomaali waxa qabnaa oo isku ka soo baxay wax soo bartay master qaba PhD qaba
oo ku soo takhasusay waxyaabo fara badan ha ahaato mataqaanaa federalismka ha ahaato dimuqraasiyadda ha ahaato mataqaanaa siyaasadda ama waxyaabaha kale marka waxaan aaminsanahay dowladda Soomaaliyeed inay dadkaas keento ay dadka u sharaxdo qofka markii wax lagu sheegayo af Ingiriis oo la tarjumo qofka wax lagu sheegayo af Soomaali oo qofka dhageysanayo kala fiican tahay marka waxaan aaminsanahay in Soomaali la keeno dadka loo sharxo la tago tuulo loo qabto orientation la fahamsiyo dadka la fahamsiyo waxaan aaminsanahay dadka inay fahmayaan kadibna federalismka ay horumar gaarayso oo horaa u socon karto insha Allah mudana waxaa dadku ay ku arkayaan inaad tahay shakhsi kaligiis aanan xisbi wadanin misna haddana socdaalkiisu markii la eego ay u eg tahay in shakhsi muwaadin Soomaaliyeed isu soo sharaxayo kale inaad tahay ma kula tahay in doorashada haatan ay soo dhawaatay 2016 bisha 9aad ay dhici doonto inaad musharax adigu tahay horta aniga wili ma dhihin waan sharaxayaa ma dhihin madaxweynaha ordaa ma dhihin aniga waxaan hadda aan aad xoog u saarayay xagga humanitarianka iyo dadka in la caawino in dadka u baahan yihiin iskuulaad loo baahan yihiin in ay u baahan yihiin isbitaal loo baahan yihiin jaaliyadda Soomaaliyeed ee dibadda ku nool aad baa uga mahadcelinaya safarada markaa soo maray kadib ballamada ay qaadeen way u fiyeen oo iskuulaad badan baa meel laga furay oo mataqaanaa ay sameeyeen dowladda in wax laga sugo maaha dadka wax bay qaban karaan dadka inay ayaga ay la isku tashadaan way fiican tahay aniga ka shakhsi ahaan insha Allah taala saan ku sheegay arrimahayga siyaasadda waxaan sheegi doonaa xilligeeda marka la gaaro oo doorashada ka hor haddii la yiraahdo inaan sharxay in kale laakiin haddeertaan waxaan xoogga saarayaa arrimaha uu mataqaanaa humanitarianka mudana aanu dhajaleeco markaan xagga maamul dhisitaanka gobolooyinka Soomaaliya qaasatan caasimadda dalka Soomaaliya ee gobolkii uu hoostago u yahay gobolka Banaadir sidee u aragtaa falkay hadda dawladda dhanka kaga dhaqaaqday xagga dhisitaanka ama kuraaska heelka aqalka sare ee Soomaaliya waa arrin muhiim waaye gobolka Banaadir marka hore waxaan rabaa inaan mataqaanaa gobolka Banaadir waxay ka mid tahay 18 gobol ee Soomaaliya shirkii ama heshiiskii lagu soo heshiiyay Garowe 2 waxaa ku jirtay in marka la sameynayo aqalka sare lagu sameeyo gobolada Soomaaliya 18 gobol ee Soomaaliya oo taas oo ah lagu dhuftay 3 xubin gobolkiiba oo ah 54 xubnood oo aqalka sare loo sameynayo hadda marka lagu shiray magaalada Muqdisho ay shireen madaxda qaranka ay shireen mataqaanaa madaxda maamulada Soomaaliya iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay joogeen waxaa lagu heshiiyey oo loo qeybiyey aqalka sare loo qeybiyey gobolada intooda kala dhan waxaana la siinin Banaadir saa sheegtay waxaa ku taalo magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa ku nool dad muwaadiniin Soomaaliyeed oo 2 milyan iyo bar kor u dhaafayo Muqdisho waxa waaye canshuuraha laga qaado magaalada Muqdisho waxaa lagu bixiyaa ay ka mid tahay ugu badnaan budgetka miisaaniyadda mataqaanaa dowladda Soomaaliya Muqdisho waxay mudan tahay muwaadiniintu waxay mudan yihiin in xaqooda la siiyo waxay mudan yihiin in mataqaanaa la siiyo xaq ay ku leeyihiin aqalka sare madaxda hadda taan mataqaanaa oo madax ku jirto badankooda ama aan dhahe badankooda waxay wax ku soo barteen Muqdisho dugsi hoose dhexe sare jaamacadaha qaar ka soo baxeen waxaan filayaa aniga inay u micinayaan Muqdisho ay xaqooda siin doonaan laakiin ma dhicin laakiin waxaan rajeynayaa haddii la yiraahdo hadda shirka ka dhici doona Baydhabo June 20keeda in ay isku laabtaan ay madasha odayaasha ama madaxda qaranka ay dib u fiiriyaan ay xaq ay leedahay ay leeyihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ay siiyaan haddii la yiraahdo mudane waxaad aragtaa maamulada badanaaba inaysan dhisnin qaarkood sida hadda markaan tusaale ahaan u soo qaato Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan waqtigana la mucaayimay in ay electionka ama doorashada ay dhacayso in ay tahay 2016 sanadkan haddaan ku jirno bishiisa 9aad ma kula tahay in meeshaasi dawladda ay ku fashilantay maxaad leedahay warunta waaye arrimaha dhan waxa waaye waxaa keenayo aan dhihi karaa dibdhac ay dawladda sameysay waaye dawladda markii la doortay madaxda la doortay 2012 waxyaabaha ugu muhiimsan ay sameeyaan waxay ahayd in la sameeyo maamul goboleedyada dhiman in la dhameystiro arrinta Muqdisho maqaamkeeda iyo waxay helayso in laga hadla ahayd hadda maanta ama bilo ama maalmo ay ka dhiman yihiin
doorashadii in la yiraahdo hadda laga hadlayaa waxa weeye waxaan u arkaa inay tahay qalad ay sameeyeen dowladda ay samaysay ay ahayd inay mar hore sameeyaan laga hadlo hadda waxaa la yiri guddiga la magacaabay 6 qofood ah laba siman ayay go'aan ku keenayaan lama sameyn karo wax ay ku heshiin waayaan see mataqaanaa 6 qofood u keen kartaa hiiraan shabeelle dhexe buuq baa ka taagan oo hadda weli go'aan lama gaarin haddii laakiin aan waxaa aaminsan ilaa ka sokow la bilaabi lahaa mar hore in arrintaa go'aan laga gaari lahaa waxaa u malaysaa in dowladda ay ka seexatay howsheeda mudan waxaad hadda aragtaa in 18 gobol Soomaaliya inuusan federalism-ku u dhamayn xagga dhisitaanka maamulada sida Khaatuma State oo kale maxaad ka dhihi kartaa tilaabada tan ay ku dhaqaaqday dowladda Soomaaliya والله waxaan dhigahay dowladda waxaa la rabay mataqaanaa saan ku sheegay waa arrimahaas oo dhan waxay ahayd inay xoog saarto waxaa moodaa dowladda inay isku ekayso kaliya magaalada Soomaaliya Muqdisho waxay ahayd inay waxaas dhan ay ka shaqeyso goboladaas dhan oo mataqaanaa oo wax tirsanayo in la hadlo in mataqaanaa waxay tirsanayaan laga xal mariyo in la xalliyo ay ahayd laakiin in la sugo marka u dambeeyo oo la dooranayo xal maaha saan ku sheegana waxa waaye waa dowladda ayaa ka saxtay mudana maadaama aad tahay siyaasi haddana sumcad ku leh Soomaalida dhexdeeda ma jirtaa inaad baaq u jeedisay dowladda Soomaaliya ama TV-yada aad ka hadashay adigoo ka hadlaya arrintan maamul sameynta gobolooyinka waa ka hadlay mataqaanaa hadda markaa soo laabtay iyo markaa dibadda jira xitaa waan su'aalka nabadda ku jiray TV-yada waa ka hadlay raadash waa ka hadlay waan dowladda ugu baaqayay arrin hadda aan ka faa'iideysto walaasgaada waxaa ku jirnaa bisha barkatan Ramadaan waa bisha ilaahay mataqaanaa uu noo sheegay ay tahay in la is caawino inay tahay in la is kaalmeeyo dowladda waxaan ka filaynay in bishaan intee baxdo madaxda dowladda ay baxaan ay dadka qaxootiga ay gacan siiyaan example ama aad tahay soo qaato Muqdisho waxaa ku nool 500,000 oo ka badan oo dad oo barakacyaal ah waxay ku nool yihiin meel u dhow villa Soomaaliya ilaa baar bulsho meel kale ku nool yihiin dowladda maxaa laga sugayay inay qabtaan ayadoo dadka u miceenay dadkooda ay yihiin ay mas'uul ka yihiin inay inta baxaan maalin kasta ay afur la siiyo oo la kaalmeeyo ma dhicin gobolada saas oo kale dad baa ku barakacay magaalada Beledweyne waa ogtaa maalin weeto webiga ayaa soo fatahay waxaa u soo miceenay oo kaalmeeyay marwada Djibouti iyo dowladda Djibouti ilaa qara ka siiyo oo mahad celinayna ayaa kaalmeeyay dowladdii mas'uulkeed golaha wasiirada Fariistal yiri waxay dhaheen hala kaalmeeyo kamaal ayaa hala siiyo ma la aaday aniga waxaan filaynay wadamada qaarkood waxaa la geliyaa state of emergency marka waxaan ka dhacaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha xildhibaanada iyo wasiirada ayaa taga meesha dadka in wax loo qabto waa marka waxyaabahaas dhan ayaa jira oo loo baahneen hadda taana insha Allah taala waxaan ugu baaqayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed cid kastoo awooda inay kaalmeyso walaalahood Soomaaliyeed oo u baahan afur in la kaalmeeyo haddii la yiraahdo ajra ka helaysan ayagana waa idin mataqaana kaga mahad celinayaan ugu dambeyntii mudane TV-ga Somali Channel fursad uu ku siinayo maxaa madaxweynaha Soomaaliyeed ee shacbiga la wadaagi lahayd Soomaaliya waxaan aaminsanahay aniga marka hore inay u baahan tahay cadaalad Soomaaliya inay u baahan tahay midnimo in la midoobo markaas ayaa horumar la gaari karaa waxaan rajeynayaa haddii la yiraahdo dowladda cusub ee dhalan doonto inay wax fiican ka qaban doonto Soomaaliya aniga waxaan aaminsanahay ama aan optimistic waxaan leenahay badda ugu dheer ee Afrika waxaan leenahay laba webi waa leenahay waaweyn waan ka faa'iideysan karnaa laakiin waxaas dhan waxay imaanaysaa markii nabad la helo nabadda si loo heli karaa waa in la xoreeyaa meelaha jirtaan ay mataqaanaa ay qolooyinka nabadeedka ay haystaan iyo waxaan rabaa iyadana inaan aad iyo aad uga mahad celiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mar kasta u taagan mataqaanaa xoreynta wadanka inta dhimatana Ilaahay oo naxariisto kuwa dhaawacan Ilaahay inuu dhaqso oo mataqaanaa caafimaad si ayaa u rajeynaya waxaan filayaa insha Allah taala iyadana inay muhiim tahay in ciidankeena aan tayeeno aan xoojino ciidanka AMISOM gacan weyn siiyaan laakiin markasta lama joogi karaan waa ciidan mataqaanaa waqtigoodu go'an yahay ciidankeena aan kaalmeeno aan xoog saarno ayaga ayaa wadanka badbaadin kara daawadayaal intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa waraysigii aynu la yeelanay safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay dalkani Kenya mudane Maxamed Cali Nuur America dhanka farsamada iyo kaameradana waxa iga naga caawinayay
cabdiraxiin darbo iyo abuukar bataar. waxaan idin la socodsiinaya anigoo ah cabdiraxmaan si naxariis leh. tani waraysi midkan oo kala intaan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Ramadaan mubaarak.